السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي النصر وإذن له وقتي والبي إذن تهي وناكسن أنا كل وحي تهي نحل معركتي وفي ذا تهي إن ما أنت إن شاء الله وحيدي وذا موضوع عادي مهم كاسو معركتي إن إسلها بلشة أهان وأباهن هاي waa self confidence macnaha isku kalsoonaanta nafta ama kalsoonida nafta oo magacdare mowduucan waxa u maleysaa marka anaga aan maaragtay bili aadan aan nahay dhiirigelinta qofka dooya qof maaragtay mar walba oo dhiirigashan oo isdhaw wax fiican ah sameysay laakiin kalsooni ahaan oo qofka u hooseeyo waxaan isleeyahay ma caawinayso marka kalsooni oo hay haysato oo naftaada ku kalsoon tahay 100% oo naftaada qiimeyn 100% aad siiso guul iyo guul darabo ina naftaada dhahdo okay naftayday kalsooni aan kugu qabaa hadaa guuleysatane waan farxayaa hadaa guul dareystane waan farxayaa guul daradani mar walba waxa ogaataa anaga bil aadam markaan nahay guushan aad jecelnahay laakiin kalsoonida nafta waxa kamid ah qofkii inuu guul dareysto guul darada waxba laga bartaa guushu waxa way ka farxinaysaa waa lagu buunbuuninayaa waan wada jecelnahay laakiin inta badan waxa laga barto waa guul darada laakiin marka aadan ahayn qof maaragtay kalsooni naftiisa ku kalsoon waxa u nuglaanaysaa af xumo dhan anaga bulshada Soomaaliyeed markaan nahayna Ilaahna soo hadeeyo hadalada oo sarbeebta ah hadalada maaragtay qofkii inuu maaragtay qalbigiisa la dhaawaco meelaha uu qofka oo maaragtay is dhahayo kale waxyaabaha oo u hirgelino kaleeto ama waxyaabaha la is dhaha qofka waa lagu ataagi karaa way nagu badan yihiin marka mowduucan aad uu ku anfacaya dhagtaada soo taag koobkaaga shaaxa ama biyaha waxa cabaysan waxaan ku dhahay soo dhaweyso si markaa waxaan ku dhahay aad haraadaba aad qab u siiso maxaa marka maxay ka caawinaysaa inaad tahay horta inaad adiga naftaada mar walba ka dhaadhiciso waxa ugu daran ee bulshada bil aadankaaga daran waa naftaada waxa ku soo xigo waa bulshada kugu hareeraysan dhinac kasta ee dhaleeceynta kaaga imaan kartaa waxay kaaga imaan kartaa dadka ku dhow xataa ama walaalahaaga ahaadaan ama waalidkaaga ahaadaano inta badan macnaha marka aad kalsoonidaada maaragtay 100% aysan ahayn wixii lagu dhaho waxa laga yaabaa dadka qaar hadda adduunka oo maaragtay bil aadan dartood maanta sariir u jiifaan oo caafimaad dar uga dhacday oo maaragtay markii wax la dhaho haq dhahayaan laakiin maxay dib ugu maxay marka asalka la galaysaa ina anaga marka hadda dad waaweyn aan nahayna aan kalsoonidu waa la dhisaa qofna adoo kalsoonidaada kalsooni haysto laakiin hadda kalsoonida aadan dhisin waxa kalsoonidaada ku dhisi kartaa inaad tiraado okay aniga horta akoo ka bilaawdo nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku siiyo oo caafimaadka ugu horeeyo oo aqliga ku xigo waayo waxa laga yaabaa maanta qof kor ahaan iyo muuqaalkiisa jir lixaadkiisa iyo buuxaan laakiin aqligii iyo maskaxdii oo isku maaneed garay lahay aan lahayn ajiro Ilaahay wuxuu ku siiyay aqli Ilaahay wuxuu ku siiyay lixaadka ku dhameystiray waxa laga yaabaa maanta Ilaahay inuu maaragtay noloshaada uu ama aad guursato caruur leedahay ama maanta aad wax baratay oo shaqaysato nimcooyinkaas haysato waa hubkaaga fahanti waxa adiga sameysatay waay ina maanta aad wax barato 100% maaragtay 99 adeeg ka imaatay ina shaqo tagto adeeg ka imaatay ina guursato oo awlaad dhasho adeeg ka imaatay waa ina isku dhiirigeli kartaa waa ina hubka dhigataa soo marka oo aad laakiinse aad naftaada oo aad tiraado hadii lagu dhaho kaleeto dadku ku ataagaan oo kaleeto ee kalsoonida qofka kalsoonidiisa ay hooseyso kaleeto oo lagu dhaho waxa kamid ah wax kasta dhibsanaysa inay kalsoonidaada hooseyso waxa ku ogaa kartaa wax kasta dhibsanaysa ku
wax hadduu qof ku dhaho wax kuu hirgeli waayo waxaa laga yaaba business inaad samaysatay businesskaaga oo maaragtay sidaa rabtay u noqon waaye waxbarashadaadii maaragtay inaa aad meeshii aad rabtay aad gaari waysay marriageko kaleeto waxaa laga yaabaa inuu maaragtay sidii aad rabtay uu kuu noqon waaye soo marka ama caruurtaadoo kaleeto ilmo yaroo qalqaaliyo kale inaad qabto oo dadkii hadalka ay kugu dhahayaan oo kaleeto wuu ku saameynaya markay kalsoonidaada maaragtay ee hooseyso laakiin marka kalsooni hay ah haysta waxaa leedahay oy war cunugeygana waxaa leedahay markii lagu dhaho kale oo wallaahi bilaa ilmahan saan isaa markii lagu dhaho waxaa leedahay wallaahi cunugeyga alxamdulilah habyaa ku ahay haddii maaragtay lagaala hadlo kalo shaqo ama business wax kuu hirgeli waayo waxaa leedahay war waxaan waa tijaabiyey haddana waa ku celinayaa never weligii aniga waxa waaye hoobkeyga waxa waaye mid oo aan ka tanasulayo ma ahan haddii example oo qofka lagaa soo ataago kaleeto marriageko kaleeto oo ama bili-aadanko kale ay ku dhaha wallaahi marriage waxa la wallaahi bilaahi ama hebel oo kale waxa waaye saas guurka u hagaagi waayo waa qof saa lagu dhaho waxaaba taagan tahay waxaa waa nafasina maba dhamaaninba weli waa tijaabin wayaa tijaabale ku jiraa lay taagan tahay soo marka waxaa ku rajeynayaa inaa horta aad noqoto qof kalsoonidiisa maaragta dhiso adoo kalsooni haysto kalsoonidaada hoos dhac wuu ku imaanaya haddaadan dhisin sidaa darteed marka waxaa la rabaa waxyaabaha oo kuu nugleynayo oo afxumayaasha dhan maaragtay oo dadka afka xun ama bili-aadanka jecel maaragtay inay dhibaateeyaan ama si sarbeeb anaga sarbeebtaan ugu badan horta baash sarbeebta la yirahdo markaan Soomaali nahay waxa ku dhahay anagaa dhalnay ku dhahay anagaa dhalnay marka ka taxadar kalsoonidaada dhis sidaa isku aragtaana muhiim ah anigu ma dhahay maaragtay wax kasta adoo dhulka yaalo wax kasta bili-aadanka talada ay ku siiyaan ama hadalada ay ku dhahayaan waxaa mawduucan kula wadaagayo uusan saameyn kugu yeelanin kalsooni badan oo aad leedahayne ama kalsooni sare oo aad leedahay waxay kaa caawinaysaa inaad si nolol qurux badan aad ku noolaato inaad nolol caafimaad leh oo dheelitira aad ku noolaato in aad maaragtay bulshada markaa ku dhex jirto maaragtay qoortaada iyo wejigaaga madaxaaga kor u taagan yahay oo aadan hoos fiirneynin oo aadan maaragtay guuldarradaada aad leedahay waa guuldaraystay habyaa ku ahay dhinac kasta oo ka guuldaraysato inaad habi ku noqoto inaad tiraahdo waxaasoo dhan waa kasoo gudub maanta heerkaan aan taaganahay kalsooniday ka mid tahay oo taasna waxaa ku sameyn kartaa inaad naftaada maaragtay adigaa dhiirigeliso oo naftaada maaragtay aad siiso maaragtay kalsooni oo maaragtay waxa kuu hirgalay iyo waxaan kuu hirgelinba naftaada mar walba aad tiraahdo nafteydaa mar walba aniga diyaaraa ku ahay wax kastana adduunka wax kasta oo kaa halaabay wax noocee doona ha ahaado weliga ha ka harin hoobkaaga noocee taa hadday shaqo tahay hadday marriage tahay waxaa ku dhahay hadday waxbarasho tahay waa gaaraysaa as long adiga aad rabto inaa maaragtay waxaan qalbiga ay kasoo go-een oo kalsoonidaada ay hay tahay waa gaaraysaa waxaa noo balan ah inaa maaragtay aadan hadalada dadka aysan ku saameynin dad xunaa jiro dad waxaa jiro oo sacsacaa jiro oo special aniga bulsho Soomaaliyeed ugu badan inay ku saameynaan ku rajeynayaa sidoo kaleeto haddii aad hore ila joogto waa ila joogtay haddaad ila joogina waxaan ku dhahay subscribe saar waxaa ku dhahay sii share garay commentiga waxaasoo dhan waa xaggaaga maalmahan waxaan ku dhahay waa hawadan ka maqnaa wax yar laakiin mashquul jir darteed insha Allah mawduucyada waa soo badin doonaa commentigaaga ii reeb khayr iyo caafimaad idin dhaafay waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan walaashii Nasro oo idin leh ballanteenu waa hay kalsooni waxa waaye wixii macnaha oo maaragtay oo aad ku guuldareysatayna noloshay ka mid tahay inuu la guuldareysto la guuleysto laakiin kalsoonida oo hay ah ayaa uga gudbi kartaa waxaasoo dhan oo ku salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay habeen wanaagsan
meel baad joogtiin caafimaad iyo bashbash. Assalaamu calaykum.